maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaaladan meesha guduudan subscribe si sulkadaada ku sii karin farta aayarta ku sii sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsi si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan halkani waa maanqaad media ku soo dhawaada warbixino iyo waxyaabo aan isleenahay daawadayaashiinu aad ayay ugu baahi qabeen in ay arkaan anigoo xasan xayi cabdulaahi ayaana idiin soo jeedinaya inta uu muuqaalkan idiin soo gaarayo saacadii la soo dhaafay baraha bulshada waxaa qabsaday sawirro laga soo qaaday xaflad lagu abaalmariyey gabdho la sheegay in ay tartan ka qayb qaateen magaalada Jigjiga iyo dowlad deegaanka Soomaalida madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar ayaa guddoonsiiyey bilada nabadda iyo isdhexgalka 3 gabdhood oo la sheegay in ay kaalmaha hore ka galeen laakiin baraha bulshada waxa lagu faafiyey in gabdhahaas oo ay Faraax Cabdullaahi kamid ahayd kaalinta koobaadna ay ka gashay ay ka dhigneed bilada quruxda deegaanka laakiin warkaas waxa uu waa mid waxba kama jiraan gabdhahan waxay ka qayb qaateen adkeynta nabadda iyo wadajirka dalka ayaa la yiri waxaana wararku ay sheegayeen in tartanka quruxda ee Jigjiga in lagu qabtay dadka qaar ay sheegeen in uu ahaa mid sal iyo raad toona aan lahayn gudaheena intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo dheh oo ha naga ilaawin si aad noola socoto warbixinada kale aan soo gudbin doono mahadsanideen wadnaha ayaad ku dawarsato walla waa durugsan tahay dariiquna kala fog yahay